Ladies and gentlemen, welcome to Somali Star online training tutorial and full training. Contact Hotmail, Gmail and direct number. Tutorial and full training. Okay, good. Contact this number. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardaydii ku xirnayd casharada tenniska 12 tennis waxaan u sii gudbaynaa casharkii saddexaad oo ahaa present perfect tennis ayaan qaadan doonaa oo ahaa tenniska saddexaad inaan sii marayno. Okay, dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardayda jecel casharada luqadda Ingiriiska oo taxanaan ugu ah waxay ka sii xaggaas kala sii socon doonaan casharadoodii. Marka cashirkeena maanta waa tenniska saddexaad oo ahaa present perfect tennis ayaan ku aragno cashirkeena maanta. Marka cashirkeena ayaan soo gudagalayaa dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ardayda jecel toos ayay ula soo xiriiri doonaan Somali Star online training. cashirkan hore aan soo aragnay 12 tennis oo dhiciisa. Marka 12 tennis English, speak English correct hore aan soo aragnay. Contact this number, Yahoo, Gmail, Hotmail, barashada casharada Maxamed Maxamuud Bare iyo blogka uu leeyahay website-ka yar oo Google ku xiran uu leeyahay Somali Star online training oo casharada ka heli kartaan www.somalistar.online.blogspot.com idinku ka heli karaa casharo halkaas lagu keydiyay. Marka waxaa muhiim jiddan ah ardayda waxay la soo xiriiriyaan direct number ama Yahoo iyo Hotmail waxay helayaan casharadooda in lagu soo diray emailka. Anaga waxaan isticmaalaa email to email buu isticmaalaa Somali Star online training. Halka waxa laga isticmaalaa in emailka casharada lagu diro. Tenniska saddexaad baan markay imaanayaa si casharadiina u heshaan. tenniska hore waa soo qaadanay kan labaadna waa soo qaadanay kan saddexaad baan imaanaya kan labaad waa soo qaadanay tenniska labaad tenniska saddexaad baan maanta nooga bilaabanaya waana kan present perfect tennis baan arkaynaa present perfect tennis waa maxay. Okay, afwan waxaan soo gudugalayaa cashirkaygii what is the present perfect tennis used for maxaana loo isticmaalaa maxay tahay muxuu yahay present perfect tennis used for maxaa loo isticmaalaa. It used waxaa loo isticmaalaa for an action which completed at the moment of speaking. waxaa loo isticmaalaa isla marka uu dhamaado hadalka ayaa la isticmaalaa. waxaa horta loo isticmaalaa muxuu yahay what is the present perfect tennis muxuu yahay maxaa dhacdo fal joogto ah dhamaaday loo isticmaalaa wey. It used for an action which completed at the moment of speaking. waxaa loo isticmaalaa fal dhamaystiramay xilliga lagu hadlayo. Give an example and formula ka bixi tusaale iyo qaacido. marka formula haddii aan soo qaato waa subject plus have slash has plus past participle plus object intaasoo la isku daray ayaa waxay tahay present perfect tennis. marka waa example-kii weytaas. marka waxaan bixinaynaa qaacidadii weytaas aan iraado example-ka baan arkaynaa oo example-keennii waan ku soo qaadanay he has just played football. He has asiga just hadda unbuu played ciyaaray football oo uu ciyaarayba waana uu socdaa weli. marka present perfect tennis weekan waa tenniska saddexaad baan sii maraynaa. marka waxaan arkaynaa informative-kiisii interrogative-kiisii iyo negative-kiisii inta waa arkaynaa. Informative marka waa word caadi ah. Informative waa word caadi ah. I have just had my lunch. hadda baan qaatay qadadaydii. hadda ayaan qaatay cunadaydii ama qadadaydii. Okay, good. We have just understood the lesson. hadda baan fahanay cashirkeennii. hadda ayaan cashirka fahanay. They have just learned English. hadda ayaan
hadda ayay barteen hadda ayay barteen ingiriiska. They have just learned English. Hadda ayay barteen Englishka. He has just scored goals. Hadda ayuu dhaliyay goolal fara badan. Ama ilaa ay 3 gool score. Okay. She has just booked me. Hadda ayay itoogtay. She has just booked me. Hadda bay itoogsatay aan kale. Negative-keedii ama interrogative marka waa wordka su'aasha ah. waa sida su'aasha ay ku iman karto. Hadda waxaan akhrinay siday ku iman karto informative-kii. Interrogative-kiina waxay ku iman kartaa have baa soo hormaraysa. waa su'aal maxaa soo hormarayo horeyna waa u sheegnay. wixii su'aal waxaa soo hormaray have ama has ama had ama does ama do aa soo hormarayso. Okay, have I just had my lunch? Hadda miyaan qaatay cunadaydii ama cunay. hadda miyaan cunadii cunay oo kale lunch qadaydii ama cunadaydii oo kale. Have we just understood the lesson? hadda miyay cashirkii fahmeen? waa su'aal. Have they just learned English? Have they maya have we just understood the lesson? hadda miyaan cashirkii fahanay? marka have they just learned English? hadda miyay ingiriiska barteen? Has he just scored goals? hadda miyuu goolal dhaliyay? Has she just spoke to me? hadda miyay itoogtay? marka have ama had ama does ama do ama ama are ama is hadday soo hormarto waa su'aalo kulligood. Interrogative marka waa word su'aalo ah, jumlad su'aalo ah. Negative oo diidma ahayd. Negative maxay ahayd? waa jumlad diidma ah. jumlad diidma ah marka sideen u aqrinaynaa way? waxaan u aqrinaynaa baan arkaynaa I have not by maanayso. mar hadday diidma timaado not by maanayso. not marka gadaalna way ka raaci karaan, horena way ka raaci karaan. markay past yihiinna way halkaas way ka raaci karaan, halkaan way ka raaci karaan. marka I have not just had my lunch. aniga ma qaadan qadadaydii ama ma cunin qadadaydii. We have not annagu maya just understood the lesson. hadda ma fahmin cashirka. annaga ma fahmin hadda casharka. They have not just learned English. hadda ma ii baran ayaga Englishka. He has not just scored goals. muusan dhalin hadda goolal scoora. She has not just booked me. hadda imaysan tuugsan. hadda imaysan tuugsan ama wax imay weydiisan. marka not markay yimaado negative-ka waxaan ku ogaanaynaa waa jumladii oo caadi ah laakiin not baa noo soo buuxinayso. not baa imaanayso. not markay yimaadana waa diidmo, waa negative. marka cashiradeenii taxanaha ahaa oo hadba tennis aan qaadanayna maanta waxaan sii maraynaa tenniskii saddexaad baan sii maraynaa. tenniskii koowaad baan soo aragnay, labaad baan soo aragnay, saddexaad baan sii maraynaa. marka tenniskii cashiradii tenniska noogu socday oo ahaa 12 tennis inaan ku baranno ayaan weli ku guda jirnaa annagoo cashiradeenii taxanaha halkaa ay nooga sii socon doonaan. marka maanta waxaan soo qaadanay present perfect tennis baan soo qaadanay. marka barashada casharada luqadda Ingiriiska iyadoo taxana ah oo casharadeenii muhiimka ahaa aan ku qaadan doono waa ayaan halkaa kasii soconaynaa. marka waxaa muhiim jiddan ah inaad la soo xiriirtaan direct number ama contact aad la soo samayn kartaan hotmail iyo gmail iyo direct number ka doontaan. marka waa Somali Star Online Training iyo barashada casharada luqadda. casharo kale waxaa jira oo ardayda loo diro, ardayda lacagta bixisay kuwaana toos ayay ula soo xiriiri doonaan. sidaa darteed waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.